السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتها هودا نغلا سوعتان مeel kastoo dunida ka joogtaan waxaa la soo gaaray xiliga barnaamijka arrimaha bulshada xiligan oo kale hawada idiin soo marin jirnay xarunta dhexe ee TV-ga ku leeyahay magaalada London. muddo 5 sano iyo bar ayaan barnaamijkan arrimaha bulshada soo wadnay waxaanu ku soo qaadanay mowduucyo kala duwan oo ayagu markaas dad kala duwan iyo barnaamijyo kala duwan ku salaysan kuwaas oo nagu talagalnay bulshada Soomaaliyeed inaanu ku wacyi gelino. in badan oo kamid ah inta badan idinka noo soo qoro yiraahdo mowduucan ayaa mudan in laga doodo ama bulshada loo soo bandhigo. dabadna hawada ayaanu idin soo marinaa dadka ahalka waran oo idin keena intaanu awoodno. dabadna waanu isla qaadaa dhignaa dabadna wuxuu noqdaa waxa wacyi gelin noqda oo marka bulshada Soomaaliyeed wixii dhibaato ama wanaag oo ay leedahay marka ama dhibkii ku soo foodla laga wacyi geliyo. barnaamijkan caawa ayaa waxa uu isagu yahay mid ka duwan wax allaala waxaan hore u soo deynay halkan. waxa uu salka ku hayaa mowduuc ummadda Soomaaliyeedna ay aad uga didsan tahay inteeda badan isla mar ahaantaana dhibaatooyin fara badan wata oo la xiriira xagga caafimaadka. haddii aan idin dulmaro intaanan barnaamijka u guda gelinin waxay tiri magacaygu waa Marwo waxaan jiraa 29 sano waxaan ahay hooyo 3 caruur haysato waxaana la noolahay xanuunka dilaaga ah HIV-ga waxaana ku noolahay Scandinavian-ka. haddaba waxaan waraysi la yeeshay gabadha magaceeda Marwo ay tiri Marwaha la igu yeera magaceeda dhabta dabcan aan ahayn ayadoo doonaysay muddo 2 sano inay TV-ga Universal la soo xiriirto balse marnaba ay u suurtageli weyday ama duruuftii qadartu u masaabix weyday in aanu fooda isdarno. haddaba waraysi dheer oo dhinacyo kala duwan taabanaya ayaan ka qaaday qisadeedii ayay ka sheekeynaysaa iyo xanuunku siduu u asiibay iyo dhibaatada uu ku hayay intay laag tahay. saan hore bay idinkugu sheegay barnaamijyadan ugumaanan talagelin dadka shakhsiyaadka in lagu weeraro ama lagu caayo xanuunkana rabbigay baa keena subxaanahu wa tacaala. haddaba waxaan u samaynay magaceeda ayaanu bedelnay codkeedana technology-gan casriga ayuu farsamo yaqaankeena Cali Naaji ku farayaraystay aan aad uga mahad celinayno si codkeeda loo qariyo iyadoo si aad iyo aad igaga codsato tiri ilaahay baan kugu dhaariyay codkayga hawada ha marin oo ha baahinin oo hay ceebaynin gabar walaashay ahay. haddaba meelaan kaa ceebayno iyo waxaan kuu ceebayno midna ma jirto cidaan ceeb lahayna ma jirto rabbigay marka laga raabiyay rasuulkiisa calayhi salaatu wassalaam. haddaba qisadeedii ayaa sidaan ku bilaabatay waxaana jecelahay insha allahu tacaala idinku inaad khadadka teleefanada uga qayb qaadataan. ujeedada barnaamijkan ugu talagalnayna ma ahan xanuunkaana dhibaatadiisa inaanu ka sheekayno waxaanu doonaynaa bulshadeenu inay noqoto bulsho xadaarad dheer leh oo waxyaalahan ka hadasho oo cudurrada iyo dhibaatada soo foor saarta aan qarsanin sida xanuunada miska xanuunka oo kale kansarka oo kale HIV AIDS-ka oo kale iyo waxyaalaha la midka oo noqoto bulsho iska wacyi gelisa markaana caafimaad raadsata isla mar ahaantaana dadku aysan takoorinin dadka xanuunada noocaasa qaba oo dadka maxay tahay markaa dhibaato aan la gaarsiinin oo aan la oranin waa heblaayo iyo waa hebel iyo kii saas ahaa iyo tii saas qabtay weeyaan. maxaa yeelay adigaba ilaahay uu ku itixaami karaa sidaa awgeed in lala noolaado oo dadka la soo dhoweeyo ayaan insha allahu tacaala ugu talagalnay barnaamijkan. waana kii ugu horreeyey ee gabadhan oo ay afkeeda ku hadasho wejigeeda ayaanu qarinay codkeedana waanu bedelnay iminkana waxaan idinku wareejinayaa waraysiga qaybtiisii koobaad daawasho wacan. walaa waxay igu kalifay muddo badan waxaan waa qarsanayay oo adigu dhowr sano ah waxay igu kaliftay walaalo maadaama qof keligeeda ahay 3 caruuraan haystaa agoona markaay wehel baan u baahday markaay waxaan rabaa walaalo inaan dadweynaha horta marka koowaadana laga soo duceeyo marka labaadna walaalahayga muslimka waxaan rabaa Soomaaliyeed inaan ka codsado inaan codkayga walaal u hirgalo sida dadka aniga oo kale walaal aniga ila midka ah oo kalaan maanta maasiiskan ama baraza waa dhibaatadan aan qarsanayay muddo badan baan qarsanayay aan waddan Yurubta ka mid baan joogaa Sweden baan joogaa waqooyiga Sweden baan ku noolahay walaal xanuunka waxay igu dhacay dhowr sano ka hor xanuunkan HIV-ga igu dhacay markaa wehelna ma haysto marka saasaa walaalahayga horta muslimiinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanaya marka
ورسيني سوتبيان مرلبات ولا الوحدة بيجمع هاي حنون كني وحاور ورهين بيجمع هاي ويقف حنون كلك يسمي جوا شقيسا سجال ساعة باشقية وحدة بيجمع هاي بس هو حربا ولا علينا ينسوتبيان مادام هو حسام وهجاك تاسو waxay qayb kamid ah waraysi dheer oo soo socda insha Allah taala ka bogan doontaan hadii alla yiraahdo qayb kamid ahayd waxayna isku dayday inay hesho wehel inay waxay raadinaysaa iraahday wehel iyo dad ay nolosha la qaybsato dib baan qaybaha uga imaan doonaa laakiin waxa laga yaabaa inaad isweydiisaan xanuunkan soo ugu dhacay maxaa ku kalifay waxaan weydiiyay maxaa ku kalifay oranayna sidoo ugu dhacay iyo sidee bay oran nooshahay iyo yaa u keenay iyo xaguu uga yimid odaygeedii Allah u naxariistay waxa uu ku dhintay shil gaari waasay ii sheegtay ayadu waxayna kaloo ii sheegtay inay isbitaalka ku ogaatay markii ayadu ilmaha labaad ay dhalaysay ayadoo ilmihii koobaad ayadoo xanuunka qabta ay dhashay ilaahayna ilmihii uu ka badbaadiyay saddexdoodaba xanuunkii ayagoo caafimaad qaba ay joogaan daawooyin bay qaadataa waa bukaan socod 9 saacadood baan maalintii shaqaysaa dadkana laygama yaqaano bay tiri laakiin waxaan xambaarsanahay ama qarinayaa sir aad iyo aad u weyn sirtaas oo xanuunka aan la noolahay anigoon garanaynin bulshada aan la noolahay ee Soomaalida iyo ehelkayga iyo qaraabadayda sakeeyaha siday ii arki doonaan maxaa yeelay bay tiri xanuunkaanu la noolaashadiisu dhibaato ma lahan laakiin naxdin buu leeyahay gaar ah markaad u sheegtid hooyada meel baad dhaqanaysa sida awgeed hooyadeedoo la degan ayay ka qarisay aysan la doonaynin inuu sheegto waxayna ii sheegtay dadka qofka igu jecesha inay tahay haddana sirta aysan ku aamini karinin waxaan insha Allah taala jecelahay barnaamijkan uga qayb qaadataan khadadka telefoonada emailada iyo waliba Twitterka insha Allah taala hadii ilaahay yiraahdo sidee bulshadeena looga wacyi gelin karaa sidee bulshadeenu qofkii qaba loo soo dhaweyn karaa oo loo xanaaneyn karaa oo sano noqonin dad la midabta kooro cugdad lagu abuuro oo marka ayagu maaragtay dhibaatooyin hor leh ay dadku inuu u keenaan waxa laakiin ajaa'ib leeyahay ii sheegtay oo waraysiyada soo socda ku jira markii loo sheegay xanuunka inay qabto odaygeedii oo meesha taagnaa waana say hadalka u dhigtay inay tiro odaygayga ayaa xanuunka markii hore asagu qabay oo ii keenay dabadeedna markii dhakhaatiirtu arrintii ay u sheegtay waxay ku leedahay waxba yaraatee surprise ama fajaca kuma noqonin laakiin naxdin ayuu qabay wuuna iga qariyay waxa uu ahaa nin aadi naxdin ayuu aad ba ka muuqatay arrintaana uu iga qariyay nin aadi jecel buuna ahaa wuxuu soo keenay bay tiri wadamadan ayuu keenay bay tiri nin inacab ama dhibaato igu haya ma ahayn laakiin se dambigiisii in ilaahay uu dhaafo ayaan ilaahay ka codsaday haddana wuu geeriyooday waxaan jecelahay insha Allah taala intaan telefoonada u gudbinin video clip kale oo gaaban inaan idin soo daayo dabadeedna khadadka telefoonada aan idin furno hadii alla yiraahdo waxaan ka codsanayaa farsamayaqaankeena barnaamijka ku xigeen inuu soo daayo وأنا وحوجادي أنا وحال المهيسة لبا الموضوع حقود على حنون كان أنا وقضاء جاهي ذاك بجادي بس مرسورة حنون كوحا هيسي وضيجي جاهيسي مرلواتي مركي عن ودك علي كاني أنا بقصي ويسمي ويسو ودك يسقاي كاني يسودو بي مركا سرحاتي سيبي هلا عن الموضوع ومركي ugu aniga waxaan markii la igu sheegay mii joogin niyadda sidii qofka oo maysan oo kala noqday marka waxaan moodi imkin liigu hadda dhimanaysa marka ilmo yarna waan haystay gabadh yar baan haystay marka waan niyadaydu isbedeshay sidii wax koo muuqo kala noqday haddana markii dambe salaad baan tukaday dhakhtarka dhex warwar oo kale soo buuday marka waan xanuunsaday ويسجل لفتركيس وبقناي وسديداي وحنا يشاغو سجل مدبدن وقرتناي marka isagla uu naxsana aad buu naxsana markan arkiin naxsan yahay anigana aan xoog naxsanahay dhakhaatiirtina ay leeyihiin waxba kuma noqonayso dhib ma jirto markii ugu horeysay waxaan inaan tayar baan ayaan ka naxay anigu naftayda kamaan nixin markiiba waan tukaday salaad markaan tukaday waan qaboobay sidii wax maaragtay markiiba kelmad baa igu soo dhacday
qof waliba inuu sakaraad marayo qof waliba inuu dhimanayo saasay waa shoogay waxaan tiri markaas waa dhimanaysaabaa markiiba niyadeyda kusoo dhacday markii dambe haddana waxaan xasuustay inay dhimashadu jirto inuu ilaahay nafta qaado inaan xanuunku iman karo waxyaabahaasoo dhan laakiin xanuunka naxdin buu leeyahay marka laguu sheego lagu dhahdo xanuunka HIV AIDS waad qabtaa naxdin buu leeyahay hagaag su-aasha weyn oo isweydiintana waxay tahay ha qarsanina la noolow oo xilli hore daawo raadsa gaar ahaan haddaad joogtid wadamadan aan anagu ku noolnahay daawo raadso waxaan u gudbaynaa markaan khadadka teleefanada waxaan idinka codsanayaa daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan inaad nagala qayb qaadataan intiina awooda islamar ahaantaana aaladda aad naga dhegaysanaysaan ama naga daawanaysaan aad iska baktiisaan mawduucaan ku jirnana insha allahu tacaala wixii ra'yi iyo fikrada sidii dadkaas loo wacyigelin lahaa iyo dadka kale bulshooyinteena soomaaliyeed insha allahu tacaala aanu maaragtay isla fiirino qofka horeeya ahlan wasahlan halo asalaamu calaykum calaykum assalam waraxmatullahi wabarakatu waa kusoo dhaweynaa walaal cabdifataax walaal waa cawil barabshafil aad baan kusoo dhaweynaa cawil saa tahay walaal wallahi waa la fiican yahay waran aad baan wanaagsanaya oo kugu faraxsanahay soo dhawow aad iyo aad baan walaal cabdixaafid kuu salaamayaa walaalow barnaamijka waxaan ka soo gaadhay markii in yar uu socday baan soo gaadhay almuhim intii badneyd waa fahmay masha allah walaalow marka ugu horeysa gabadha waan u duceynayaa ilaahay baan u baryaynaa qof kasta oo muslima waxaan oo fahmaya luuqadda ay ku hadlaysana waxaan u baryayaa inay u duceeyaan oo ilaahay u baryaan gartay waa runtii waxaan ilaahay baa keenay walaal waa xanuun ilaahay baa keenay sida aan u fahmayna dee waxa u keenay waa shaygeedii oo jecel waa say hadalka udhigtay cawlow ha waa say hadalka udhigtay anagu ma xaqiijin karno dabcan markaa walaalow hadday jirto xataa dee isagii maanta waa meyti wuu dhintay laakiin waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo sida aad u sheegteen walaalow dee dabiib baa jira yurub bay maanta joogtaa dhakhtar ha raadsato ilaahayna ha tala saarato hagaag cawil waxaan jeclahay inaan kula socodsiiyey maadaama aad tiri xoogaa yar bay dhaafay dhakhaatiir bay la joogtaa daaway qaadataa waa qof ordaysa 9 saac bay shaqaysaa maalintii 3 caruuroo yaryar bay korsataa aabiyi hooyo u tahay waxa weye way duulaysaa daawadeedana way qaadataa absolutely qof maanta walaal xanuunsanaya oo weliba shaqaysanaya ubadna haysta waa wax ilaahay lagu mahadiyaa wey runtii kii caafimaadka qabaan shaqaynayn oo maanta aan shaqo lagu karayn laakiin iyadoo xanuunsanaysa hadday shaqaysanayso ubadkeedana sidaa ku haysato ilaaha casaawajallaa baa ka dulqaadaya insha allah ilaahayna waan u baryaynaa insha allah ugu dambayntii cawil mujtamaceena xanuunadan oo kale ma soo dhaweeyaan wax laga baqdo wax la qariyo wax tuka cambaarada dadka laga dhigo weeye see mujtamaceena looga wacyigelin karaa waar ilaahay baa keenay xanuunkaan la noolaado soo dhaweeye ha absolutely walaal ilaahay waxa weeye qofka lama takooro dadka islaamkuna ha soo dhaweeyaan ilaahay baa qofkan u keenay ha yiqiinsadeen inaanay iyadu doonay ilaahay u keenay ha ogaadaan marka sidaa ilaahay ugu keenay ha aaminaan ha u daayaan ilaahay talada ha u daayaan waxa weeye ha soo dhaweeyeen waa hagaag cawil from shafiil aad baan kugu mahad celinayaa barnaamijyo hore nagala qeyb qaadatay waxaanu jecelnahay kuwa soo socda nagala qeyb qaadatid contributionkaaga waa important thank you very much cawil from shafiil khad kale ku xiga ahlan wasahlan asalaamu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kusoo dhaweynaya walaal magaca cabdixafiid waa nin layidhaha idris waa taqaaniin si kale isku taqaaniin niyahow cudurka aniga shaksiyan waxaan aaminsanahay shaksiyan aniga ahaan waxaan goobjoog u ahaan ku warrame waqtiyadii buufiska maraykan la isku qaadi jiray waa haddaa maqasho idris waa ku maqlaa balada wado marka waxaa dhacday gabadha safaaradda maraykanka waxaa lagu sheegay waxaan qabto eediska aabeed wuu diiday wadankii u geeyey waa la quraan saaray miyiyaa la geeyey muddo sanaday miyi ku maqneed ani life aan oqaan dadka ilaa markii gabadhii 2 sano kadib la soo celiyey processkii martay safaaradii la geeyey cudurkii waa laga waayay aabihii waa loo yeeray maxaad ku daaweysaa leeyahay ta ilaahay dila dhintay waa kow waxaad idinka aaminsantiin ma aaminsan min ilaahay taasarto waa moogta wuxuu quraan buu saaray dhowr mar hilibka neef hilib idaadna wuu siiyey kulli gabadhi maraykanka hadal ku yaad iskeedana u dhimata ma cudurku ma isa dhiman marka ilaahay iska tala saarata ilaahay dila dhinto cudur walba cudur aan daawo lahayn ma jiro haddii teedeedna u dhimanay laakiin waxba isku xirin cudur jiro waayo malag unbaa wax dilay cudur qof walbana cudur unba u dhintaa markii dadku waxba iska takoornaan dhihi lahaa kolley ilaahayna u fududay
master idris aad baan kaaga mahad celinaya waxaan jeclahay inaan idin xasuusiyo ayada iminka barnaamijkan daawan mayso say ii sheegtay laakiin dib ayay waxay uga daawan doontaa youtube-ka sidaa awgeed waxaan idinka codsanayaa qalbigeeda insha allahu tacaala inaad dhowrtaan oo hadal ay ka naxday inaan ku oranin wax ilaahay dilo unbaa dhinta maa cudur qof walbana waxa waaye malag wuu dhadhaminaa si uu dhadhamiyaba laakiin iska dhaadheen cudur aad ilaa u dhimanto ilaa waa la dhimanaa laakiin cudurkaas aad u dhimatay waxba gelino rabbi tala ku filan ha tiraa ilaahayda iska cabdo salaadeena ha tukato maalintay teedi gashun bay dhimanaya sarar u fuulin ama dadka iska dhex takorin aan dhihi lahaa aad iyo aad baan kuu mahad celinaa master idris mahadsanid idris from london laynka kaloo ku xiga ahlan wasahlan halo kusoo dhaweyna walaal waa dhawaa walaale magaca walaal ismaaciil hagee joogtaa london barnaamijka waa la socotay ismaaciil kusoo dhaweyna walaal cabdixafid ninka la hadlaya cabdixafiid baa kula hadlaya soo dhawo cabdixafid horta barnaamijka waan la socday ilaa bilowgiisa marka insha allahu horta ilaahay wuxuu inoo sheegay hal dawo oo waxaan geeriyihiin dawo u ah mawdka mooyaane inta kale dawo u ah waa gartay waa xabadu sawda qofka xabad sawdada ha isticmaasho gabadhaasi waanu u duceyneynaa ilaahayna maaragtay qur-aanna ha isa saarto de horta dad badan oo anugu aan aqaano oo cudurkaan qaba way jiraan dawooyin maaragtay dhiigga casba cudurkaan la diriraa oo keliya hala ogaato salaada ha ogaato yani waxa maaragtay isla markaa qofka dilahaya ma hadduu maaragtay dawooyinkiisa iyo sida maaragtay dhakhaatiirtu adfaydka ay kusoo u isticmaalo waxaa laga yaabaa dad badan oo caafimaad qaba inay ka hor dhimanayaan ayada oo horta haddaan cudurkaa maqalno geeri baan soomaali haddaan nahay iska maaragtay yani aan qorshaysanaa waktigii ilaahay ugu talagala ayuu qofku dhiman hayaa qof caafimaad qaba iyo qof cudur qababa gaari baa qof dad badan oo kala goyn kara marka walaashay waxaan ugu duceynayaa in ilaahay horta cudurkan ka dulqaado xabad susoodada miraha ha soo qaadato tana saliidda waxbaa lagu dardaraa baa laga yaabaa ha shiidato ha laasumato hadda ka hor baa qof kansar lagu sheegay iswudantaa iyo meelaha kansarkii dhakhaatiirta beerkaa looga sheegay xabad susoodada gabar walaashiisa ku asfeed garaysay waa dad aan aqaano way samaysay sidiiba wiilkii qaatay si usoo isticmaalay markii dambe fay buu noqday marka cudur aan dawo lahayn ma jiro maaragtay yani qof walbaana waktigiisa ayuu dhimanayaa waxba aysan walaasheen maaragtay isku murjinin adduunkan waa laga wada socdaa temporary baanu ku nahay marka yaanay u qaadanaya dadka hor dhimanayso ama bala koodhi iyadu ay ku dhacayso dawadaas xabad sawdada ayaan ku adfays gareyn ismaaciil aad iyo aad baan kugu mahad celinaa qayb qaadashadaada thank you waa hagaag layn kaloo ku xiga ahlan wasahlan halo ahlan walaal soo dhawo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum assalam waraxmatullah magaca walaal axmed from london cabdi xafiid waa ku salaamaya salaam waraxmatullah wabarakatu axmed soo dhawo dabcan barnaamijka cabaar baad la socotay oo meesha xaaladdu marayso waad maqlaysaa sidee ummadeena looga wacyigelin karaa xanuunkan dadka la noolna see loo soo dhaweyn karaa oo bulshadu aysan u nabadtakoorin awalan horta waan kaaga mahad celinayaa wacyigelinta ood ilaahay dartiis u samaynaysid ilaahayna ajri xasanaada kaa siiyo kulligeen aamiin awalan gabadha waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala caafimaad ha ku siiyo wax walba oo dhacaya ama qadarta ilaahay bay ku yimaadaan qofku choice ma leh ilaahay caafimaad ha siiyo dadkana waxaan oran lahaa xagga wacyigelinta anigu waxaan arkay laba qof indhayga ku arkay gabar iyo wiil caadi ah oo xalaal ah ayay guursadeen markii ay wax marayeenna waxaa la yidhi cudurkaana qabtaan waxayna sababsanayeen dadkaas wadankii ay joogeen oo africa operation looga sameeyey xagga ilkaha marka cudurkan waxyaabo badan buu ku imaan karaa marka keliya kuma yimaado weygaas laakiin wax badan buu ku imaan karaa marka waxaan oran lahaa qof walba oo guur raadinayo qofka uu nolosha la rabo inuu la wadaago laftirkiisa inuu iska baaro oo qof walba la taga baarista waa gartay axmed waa ku maqlaya walaal marka waxa weya dhibaatadu waxay tahay qofkaan ma ogi hadda gabadha sidaan sheekadeeda ka fahmay waxay tiri ninkaygii ayaa cudurkan aan sababsanaya marka sidaadan qofna u sababsan qof walba waxaa la rabaa ama shiiqa aada ama shariifa ahaada qofkaan helfigiisa kama warqabtid intaadan guursan
taxadar walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati buu ilaahay. axmed halkaa u kaada hadalkaas nuxur buu leeyahay waxyaalaha dadka mararka barnaamij caafimaad baa halkan ka shaqeynaa waxyaalaha noocaasa marka lasoo bandhigo dadka qaarkood haddii inanku uu ku yidhahdo inantu ay ku tiraahdo inanka ay qaba ama guursan doonaan idhaahdee waa inaad isbaartid oo shahaadadii aad ii keentid oo up to date amase wiigii hore ama labadii wiig oo lasoo dhaafaya hadday tiraahdo maadan igu kalsoonayn blackmail baa bilaabanaysa ninkiina gabadhiina waa sidoo kale iguma kalsoonin miya weligeen nin uma galmoonin radio aan ku ahay haddaadan igu kalsoonayn arrintaas wax la aqbali kara maaha sababtoo ah qofkaan adiga ma ogi dadkaana malaa'ig ma aha qofkaan wuu qaldami karaa aniga waa kugu kalsoonahay waana ku rabaa waxa aan gelaynana waa life iyo noloshanada iyo lifekanagana uma luusgarayn karno maaragtay wax fudud marka in la tago waa qasab caafimaadka in la tago even Africa waxay iska samayn karaan dadku waraaqo caadi ah waa isbaara waa kana dhigi karaa warqad feegu kula imaan karaa in la israaco oo meesha la tago oo la isa soo baaro oo resultiga caadi uga soo qaataan meesha ayaan ku baraarujinayaa qof walbeeto oo lifekiisa iyo noloshiisa raba inuu reer wanaagsan la galo waa hagaag axmed ugu dambeyntii waa gartay inaad leedahay waa in MOT la ismariyaa intaan la isguursan amase check-up la ismariyaa dadka la nool sidee bulshada ay usoo dhexgeli karaan oo nolol maalmoodkoodii aan looga hor istaagin oo magacyo loogu yeelin sida inantaan oo kale horta sideedaba diinta islaamku ma qabto karantiilka in qofkaan la karantiilo diintu ma qabto cudurkan ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisuu ka yimid laakiin qofna saqajaanimo iyo si xun buu ku keenay qofna waxaa laga yaabaa sida gabadhan ay sheegaysa ama dad badan oo arkeed inay si kaleeto ugu timid qofkaan cudurka wuu ku dhacay ilaahay subxaanahu watacaala qofka hadduu si xun ugu yimidna ilaahay ha u laabto yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi toobatan nasuuxa waa furan tahay toobadu qofkaan ilaahay ha u toobad keeno qofkan kalena waxaa rabaa inuuna midabta koor ku samayn qofkaan maxaa yeelay qoxadaa lagaa rabaa inaad qofkaan ku cibro qaadato adiga asaga ilaahay kalama jecla dadka ilaahay wuxuu ku kala jecel yahay inna akramakum cindallahi atqaakum sida ilaahay dadka ku kala jecel yahay adigana waxaa rabaa cudurkan qofka ku dhacay inaad soo dhawayso inaad niyadda u dhisto inaad tiraahdo sabar ilaahay ugu dhawow dhibaatadan kugu dhacday moor aad dhibaato kugu dhacday aad ugu sabarto ood ilaahay ugu dhawaato waa moor ah ilaahay subxaanahu watacaala raxmadiisa iyo naxariistiisa helaysa axmed aad baan kugu mahad celinayaa thankii wacyigaaga iyo waanadaadaba waa kaaga mahad celinaa qayb qaadashadaada weli waxaa noo soo socda waraysiye qaybo kala duwan oo arrinta inantaa la xiriirtay insha allahu tacaala oo iyadu ay doonayso inay hesho waasey hadalka u dhigtay shaksiga nolosha la qaybsato maadaama waxay tiri xanuunkaasaan qabo ma doonayo qof aan qabinin oo dhibaato gaarsiiyo maxaa yeelay muslim baan ahay mar raba qof kale aan dhibaato gaarsiiyo bal waxaan raadinayaa bay tiri oday yaroo nolosha aan la qaybsado oo maxaa la yidhahda aan la noolaado asaguna xanuunkaa qaba ayay ka sheekeynaysaa waana markii igu horreysay arrimaha noocan oo kale aan maqlo waxaana laga yaaba dad fara badan oo dunida jooga laftigoodu inay maaragtay la yaabaan oo dhahaan qofka xanuunkan qabo waaba dhimanayaa guur iyo jacayl iyo nolol muxuu ku falayaa arrintu aad bay arrintaa ugaga duwan tahay saan horey u sheegay 9 saac bay maalintii shaqaysaa full time bay shaqaysaa caruur 3 ay haysataa way ordaysaa horena arday bay ahaan jirtay waxayna ii sheegtay suuqa markay ordayso dadka inaadan ka garan karaynin haba yaraatee Sweden bayna ku nooshahay waa hagaag say u sheegtay weene lain kale ku xigaalo salaam calaykum salaam waraxmatullahi kusoo dhaweynaa walaal horta gabadhaas waan u duceyneynaa insha allah magaca walaal waxaa la yidhaahdaa Zahro ahlan wasahlan Zahro gabadhaas waa u duceyneynaa inuu ilaahay xanuunkaas hayo uu ka qaado ama uu ka saqiro waxaan kaloon ugu mahad celinayaa kalsoonida ay haysato dadka ma wada haystaan waxaan kaloon leeyahay oo aan u sii sheegayaa in waxaa jiro ilaahay kalaamadihiisa iyo magaceeni nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka afka ku haayo xanuun kastoo haayo inuu ka tago marka gabadhaas nabiga magaciisa calayhi salaatu wasalaam afka ha ku haysato salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam salliga nabiga afka ha ku hayso ilaahaygeedana ha tabagasho ubadkeedana ha korsato nin kale iyo afaarihiisana ha ka baxdo gabigaba hagaag anigu intaasaan kula talin lahaa aad baa umahadsan tahay Zahro thank you waad ku mahadsan tahay qayb qaadashadaada iyo in dibnaha lagu hayo salliga xabiibka calayhi salaatu wasalaam aad baan soo dhaweynaa arrintaas waa hagaag waxaan jeclahay qayd kale inaan u gudbo haddii la yidhahdo ahlan wasahlan hello
Hello. soo dhowo walaal magaca Hello. walaal tv-ga iska bakti please TV-ga waa baktiyo walaale. waan kusoo dhaweynaya Ka soo hadlay. Hello. waan kusoo dhaweynaya waa ku maqlaa walaal Way maqlaysaa? si wacan Walaal waxaan ka soo hadlaya London. soo dhowo magaca Axmed baa la yidhaahdaa. waa hagaag soo dhowo axmed maxaad jecesha inaad barnaamij ku biirisid Waxa weeyaan walaal waxaan leeyahay ilaahay baa moogtay qadarka wixii yimaadaba waa lagu xamdi naqaa. waxaanan jecelahay walaal inaan kelmad kuna idhaahdo oo ay ahaato kelmadaasina xagga ilaahay iyo qur-aanku baa dawa ah. waa gartay marka cabdo waxaan jeclahay in ay haddii ay kari karayso waata aad igu tii waxay shaqaysaa 9 saacadood maalintii hadday kari karayso inay xaramka ilaahay tagto oy samsamka doonato iyo xabba sawdaha malabkala insha allahu biidnillahi alkariim waana nagu soo ducayna ilaahay ha caafiyo adigana allah kaa jisaaysiiyo hagaag axmed aad iyo aad baan ku axmed master axmed aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa qiiradaada iyo wanaagga kaa muuqda waan kaaga mahad celinaa ducadana allah ka aqbalo waxyaalaha iga codsatay waxaa kamid ahaa inuu iloobay axmedna iminka i xasuusiyey inay tiri waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogta inay rabbi jala jalaaluhu iisoo baryaan inuu ilaahay subxaana watacaala xanuunkan iga qaado nolosheydana uu barakeeyo an arkay bay tiri ubadkayga koray oo xoog loo isku filan waxyaalaha kaloo ii sheegtay waxaa kamid ah inay tiri waxaan jeclahay ubadkayga inay koraan walwalka ugu weyn oo haystana maadaama ay hooyo tahay waxay ka baqanaysaa inay ka geeriyooto ayagoo yar yar ah oo nolosha maaragtay meel ka gaarin ama aan xoogsanin ama waxba aan qabsanin inkastoo caruurtu saddexduba ay caafimaad qabaan ilaahayna xanuunka ka badbaadiyey marka waxaan idinka codsanaynaa meel kastoo dunida joogtaan caawa iyo kuwiina dib t v aan ka daawan doono barnaamijkanba markaad sujuudda wejiga dhulka dhigtaan inaad usoo ducaysaan allahu jala jalaaluhu ayada iyo inta kale oo xanuunsan ba ilaahay subxana watacaala caafimaad ballaaran inuu siiyo uuna ku arsaaqo sabir fara badan waa hagaag layn kaloo ku xiga ahlan wasahlan wasahlan habeen wanaagsan cabdixafiid waan kusoo dhaweynaya walaal magaca magacaygu waa cabdiraxmaan london aan kaa soo wacaya waan kusoo dhaweynaya mr cabdiraxmaan walaalow warbixinta caawa sheegtay murugadeeda leedahay hooyada iyo 3 caruur ah murugada ugu badan oo hadda keeni kartana waxaa waaye caruurta iyadoo cudurkaas qabta ay dhashay kuwaas ayaa murug horta ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu allah caafiyo iyada waxaana habboon qaabka looga hortegi karo in mawduuca u bato aniga waxay ila tahay dadka qaba ayaga leh hadday isku koobnaadaan waa uu xakanayaa cudurka faafi maayo ayadoo way adagtaa maanta inay horta qof aan qabin ay hesho kii qabana rajo wuxuu qabaa inuu cudurkaas ka daawoobayo ma laga yaabo inuu qof kale oo haddana cudurkii qabo inuu guursado khatarteeda leedahay waa gartay marka caruurta u muhiimsan caruurta si looga badbaadin karo inay dawo leedahay in falkeeda in dhaqaatiir lagu xasuumo ayay ku habboonaa lahayd cabdiraxmaan waxaa laga yaabaa inaadan la wada soconin caruurta kulligood way caafimaad qabaan xanuunna ma qabaan ilaahayna wuu ka badbaadiya iyaduna waxay hadalladeedii kamid ahaa on jeclay inay soo socdaan dhowaan waxaan doonayaa bay tiri nin xanuunkan qaba oo maxay ila noolaada ma doonay bay tiri inaan anoo muslim ah gabar muslimada qof kale inaan dhibaato gaarsiiyo oo dhibaato wax xaqiiqatan lagu farxo wey inay ogaatay xanuunkii bay qabtaa way la nooshahay ma doonaysa ummadda kale inuu gaaro haddana nolol iyo maxaa la dhahaa farxad bay raadinaysaa and I think inay entitle u tahay what do you think wallaahi entitle u tahay inay nolol dambe ay abuurato oo wehel ay hesho waa wax habboon ay xaqna u leedahay mar hadday cudurkaa qabto qof kale un qabo moogiye qof horta aanan qabin rajadiisa way adag tahay qof un iska aamin dad badan waxaa jira aaminsan ayagoo qabo ama ayagoon qabinba hadday adeegsadaan ama ila wadaagaan hadduuna cudurka ku dhici rabin uusan ku dhacin aaminaadana waa cajiib waa gartay waa kaaga mahad celinaya mr cabdiraxmaan thank you very much ka qayb qaadashadaada cabdiraxmaan from london waxaanu insha allahu tacaala doonaynaa 2 telefoon markaanu qaadno kadib inaanu soo dayno waraysyada qaybahooda kale haddii aan la yidhaahdo balse 2 qof aan fursad siiya ahlan wasahlan asalaamu calaykum السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kusoo dhaweynaya walaal magaca
عبد حفيد عادي أد بنكون سدبين يعني وبرنامج تاعين والله صعنا والله بالله مكان waxaan ka soo hadlay horta magaalada London magaceeygana wax la yiraahdo aadan baa la yiraahdaa warka aad sheegtana niyo aad baan ugu faraxsanahay wallahi maadaama aan aragnay dad Soomaaliyeed oo isku naxaya oo dhiig leh oo mataqaana aan doonayn inay walaaladooda kale ee Soomaaliyeed inay qaadiyaan horan oo aragnay qaar badan Soomaaliyeed oo ku faanaya inta qof ay qaadiyeen laakiin waxa maanta aad loogu farxaa oo aad ugu farxay inay gabadha Soomaaliyeed ay runta sheegtay aakhiradeena ka baqanayso marka waxaan tala aan ku dhiban lahaa qor waxa weeyaan horta toobada Ilaahay waa furay waxa laga yaabaa inuu Ilaahay cudurkan ka qaado oo niyadeeda mataqaana hagaajisto waxaan kaloo kula talin lahaa inay mataqaana sida la sheegay oo iga talawnay inay bal dalkiinta dib u noqoto oo bal ay soo yaraha wagadisato caanaha geela iyo dadkii la sheegay waxa lagu yiri caanaha geela badan cudurka qaada Ilaahay waa cudurka qaada laakiin bal inay isku daydo oo mataqaana xaggaana ay tagto ubadkana Ilaahay maadaama caafimaad uga dhigay mataqaana dadkii ka soo jeeday dhalay mataqaana aabaha dhankii ka soo jeeday ama kaashood in la xiriiriyo si mataqaana hadii Ilaahay si Allah u keeno si mataqaana ubadkaas u badbaadaan inta kale qabtana waxaan kula talinayaa gabadha walaasheena sida ay sameeytay inay ku dhiiradaan ay aakhirada u baqaan maadaama adigu aad galaafatay inaan noqon Soomaaliyeena baryahan waxaad moodaa inay noqdeen dad استحزاء لكن إلا هذا ضد متقنع وناقة كشقية أدنى وفرحتنا هاي برنامج كوناكتنا هذا وضع Mr. Adam from London أدنى كومات علني أكرم قال إن شاء الله thank you الله ينكروا كحي قادان ويرقد من أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سولو ولا أفيد والسلام أنت ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كمال تي في وحن سلامة يا قبل ولا إن شاء الله أنا وحنا أرجعنا عافمات غير قبل بإذن الله إلى أن وحنا أرجعنا إن أولادي لكري بإذن الله أي مدام كل طلنا حتى إني حج كذا إن شاء الله أما عمره إلهي صوب برضو واقرتي بإذن الله أبناء جزاكم خير يحسن هذه أجر الله كافي marka waxaan leedahay hadii ay halkan ka tagto wadankii joogto ay Ilaahay gurigiisa marti ku noqoto كعبة تكتو مقام إبراهيم تكتو حجر الأسود تكتو نيدها عرفه فوشو ربي قعمها وتاقتو إن شاء الله إلهي واسينا يا أدنكو ماذا علينا ولا هاي السلام وحيري وإذا مريت فهو يشفين وهكاك وحن جعلها مركان إن شاء الله تعالى ننسو دينو ورئيسي الأحمر قيب كمذا دعو شوعا أدوكو إمنك واشقيسا قف حوق لا تهي أردي سو شقيسا صدح عرورات كوريسا daawad qaadataa caruurtaadu xanuunkii Ilaahay uu kaaga badbaadiyay waxaad tiri waxaan doonayaa marka qof aan la noolaado oo nolosha aan la qaybsado walaha waxay u adkaatay noloshii 3 sanadood maadaama ka soo wareegtay 3 sanadood aan singalahay caruurta yaryar may haysato dib caruurta iyo ila korinaayo kale ma haysato waan caafimaad qabaa ubadkayga waan koriyaa iskuulaan geysan waan shaqeeyaa 9 saacadood baan shaqeeyaa dhibtaasi ma haysato laakiin waxay haysaa fikir bay haysaa maadaama waxaan bulshadii aanan arag wax dadka dhakhaatiirta imanayo kale cadaan u badan yihiin oona Soomaali in badan arag waxay haysaa dhib ah qof xanuunka ila qaybsadaan raba oo dawada ka wada sheekaysano xanuun hagaag waa idin soo dhaweynaa mar labaad qaybaha kalena oo dib aan ugu gudbi doonaa haddii Allah ugu jala yiraahdo balse aan 2 ruux iyo 3 aan siiyo fursad haddii Allah yiraahdo ahlan wa sahlan hello 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وكسولو وين ولا المقعة والله سهرة علي دها لندن كسو هدلويا gabadhan Soomaaliyeed waxaan Ilaahay uga baryaynaa Zahra marka Ilaahay maaragtay caafimaad Allah siiyo iyadana awlaadeed Ilaahay oo la garab galo yani Allah uu keenay cudurkan asaga yani hadana ka qaadi kara Ilaahay u baryaynaa waa gabar geesiyad ah oo maaragtay arinteed u soo bandhigtay ummadda Soomaaliyeed
marka waxaan ilaahay aga baryaa caafimaad qab cimri dheer cibaadasan ee awlaadeeda ku korsato ceebna maahan inay maaragtay ay tiraahdo waxaan jeclahay inaan maaragtay qof aan la noolaado aan helo oo dhibka ila qaybsado marka yacni hadday haddi ku tahay allaha u saqira allaha u sahlaan leenahay yacni ilaaha u fududeeyo awlaadeedana allaha u dhaafo inta ummad nabi maxamed oo qabtana allaha ka qaado intaan qabin ilaahay kuma rid waa cudur xun annaga intii ummad nabi maxamed allaha naga qaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu أم الزهرة أنا كأجا ما أدعينا قيب قاد الشهادة وهاجا لين كلام نوجد بنا هدي الله يراد أهلا وسهلا هلاو هلا أقصدوا هنا ولا المقعة والله السلام عليكم عليكم السلام المقعة ولا والله حليل هذا أم محمد بالليل هذا gabadha waan u ducaynayaa ilaahay ha ka dulqaado xanuunka awlaadeydana se jeceshahay ilaahay ha u yeelo oo iyagoo u waaweynaaday ilaahay ha tuso cimri ha ku tuso noloshana inay qof la qaybsato hadday rabto waxaa laga yaabaa in ilmaheeda u caafimaad qaba uba qofka u imanayaa hadduu doono wax ka yeelayn karo hadduu qofkii cudurka isaguna uu qabo ilmaheeda ha u dadaasho hadduu ilaahay ka dhigo hagaag waa kaaga mahadcelinaya maxamed thank you waa hagaag waxaan jeclahay insha allahu tacaala dhowaan inaan clip kale ama video kale idiin soo dayno sheekadiina dhex martay anigii ayada waxaadna moodaa haddii dadka soomaaliyeed ay is-aaminaan oo inantaasoo codkeedii anagu sidaan iminka inantii soo wacaysay aan u maqlinay intiinin ka horreysay baan u maqalnay haddii la siiyo dadka kalsooni oo sirtooda la xifdiyo oo codkooda la bedelo oo magacooda la bedelo laakiin sheekada laga sheekeeya si dadka wacyigelin ay u helaan dad fara badan ayaad waxaa moodaa wacyigelin inay banaanka usoo bixi lahayn oo dhibaatooyin haya dadka ay ka wacyigelin lahayn laakiin markaad aragtid video ama website sawir ku dhegan yaha lagu yidhi heblaayo fiira ama heblaayo codsina laga duubayo adduun oo dhan la qaribo kalsoonida ayay baabi'inaysaa taasina waxay keeni kartaa inaysan ummaddu sirteeda ka waraminin si dhibka ku dhacay qofka markaa loogaga faa'iidaysto oo ummadda ay wacyigelin noqoto haddaan meel kale idinka tuso qur-aanku wuxuu ka sheekeeyaa qisas sababaha looga sheekeynayana waxay tahay dariiqa kuwaasu ay mareen inaadan marin hadday fiicnaayeenna inaad ku dayatid marka insha allahu tacaala in la isxaq dhowro oo dadka maaragtay aan sharafta iyo karaamada laga qaadan gaar ahaan mediaha printerka internetka sawirada la geliyo oo kale tv-ga universal iyo maamulkiisa waxay ku mahadsan yihiin inaanan gabadha iyo qof lamida midnaba codkooda soo gudbin dooninin sirtoodana aanan hawada marin dooninin ilahayna inuu sirtooda xifdiya ayaanu jecelnahay qofna doonimayn inaan ceebeyno laakiin halkan waa meel la wada qaado aanu jecelnahay inaanu ku wada qaxweyno iskuna weydaarsano aqoon iyo wacyigelin haddii ilaha yidhahdo waa hagaag khad kale ku xiga ahlan wasahlan hallo hallo waa ku soo dhaweynaya mudane soo dhawow magaca magacayga asad ayaa la dhahaa waxaan joogaa adiga yurub wadamo kamid aan joogaa gabarta fikradeeda ilaahay horta caafimaad ha siiyo caafimaad horta ilaaha haayo maasha allah haddii ay dhahday nin ila qaybsado ayaan rabaa maasha allah wiil oo asagana cudurkaas aa jiro oo asana yurubtan kamid ah in asana oo la qaybsado wiilkaas asana maxaa waaye gabar kasta asana ma raadsan karo cudurkaas ayuu qabaa insha allah gabartaas waa soo dhaweyhina wiilkaas iyo wiilkan gabarta waa isla xiriiriya insha allah haddii isfahmaan insha allah ninka la qaybsado asagana wiil iska daayar waaye cudurka ayaa ku dhacay waa iska fikirsan yahay isbitaal waa socoyaa adiga muddo muxuu shaqaystaa 9 saac waa shaqaystaa ama 10 saac waa shaqaystaa wax ka hadlaysan male laakiin cudurka ayaa dad kasta maxay leeyihiin ninkaas cudur ayuu qabaa naag kasta ama gabar kasta oo la sheekaysto maxay leedahay cudurkaas ninka cudur ayaa qabtaa si aan iskula guriga isla joogi karna ma jirto asiga dhammaan waa yaaban yahay marka waa aad ayaa umahadsantahay caafi ilaahay ku xafdiyo marka waxaan ka codsanahay gabartaas wiilkaas insha allah wiilkan insha allah duu arsana wadamadan ayuu joogaa insha allah si la iskala xiriirsiiyo
insha allah falkeed inaa geshid falkeeda geshid asigana martaan ayuu ku yaaban yahay insha allah duu aliyada khayr badan oo ku rijeeya insha allah duu ilaahay inuu ku xifdiyo waa hagaag Mr. Asad aad iyo aad baa u mahadsan tahay waana waxay ayadu raadinaysay qof ayadu waa si hadalka u dhigtay dhibaatada ama xanuunkaas oo kala qaba maadaama aysan doonin cid kale u gudbiso maaragtay si ay maaragtay ayaguna u dhowrsoodo ayaguna u xifdisanaadaan dad kalena aysan ugu gudbinin haddii ilaahay yidhaahdo waxayna iga codsatay sida waraysiga ku imaan doonta soo socota inaan u gudbiyo haddii ilaahay yidhaahdo qofkii maaragtay waa say hadalka u dhigtay diin leh da-diisu 40 aysan ka weyneyn balwadna aan lahayn yurubna ku nool maxaa yeelay bay tiri carruur yar baan haystaa dooni maayo inaan safaro dheer galo kama bixi karo maadaama carruur yar aan haysta keligeena ahay marka a.xafida.tv.universal.net ayaad kusoo qoraysaan aniga idinka idinma dhexaynaya wixii emaila dadweynaha soomaaliyeed soo diraan ayadaan u gudbinayaa wixii markaas wanaag iyo maxay to wata wacyigelin iyo duca iyo insha allahu tacaala u gudbinaynaa ciddii insha allahu tacaala sida ninka uu Asad sheegayo kale doonayo qof asagoo maaragtay marka uu nolosha la qaybsado waa u gudbinayna laakiin anagu iskuma kingeeni karno iskuma kingeeni karno inkastoo jeclaan lahaa arooskan aan kasoo qayb galo haddii ilaah yidhaahdo waxaan jeclahay markaan idiin soo dayno next video dabadeedna dib aan idinkugu soo noqono daawasho wacan rajo intee la-eg ayaad qabtaa mujtamaca soomaaliyeed qof ama laba ama dad xanuunkan qaba haddii ay markaas ay maqlayaan inay kasoo jawaabaan baaqan oo yidhaahdaan waa intaad raadinaysay ma isleedahay albaab bay furi kartaa dadku ay ku wada xiriiraan isku duruufta walahaayo waxaan rabaa dadku inay gruub samaystaan oo kusoo wada xidhiidaan dadka xanuunkan haystaa intii aan haysan horta inay usoo ducayso intii haysataan waxaan filayaa inay dad haystaa wadanka joogaan oo qarsanaya dhalinyaro uu ku dhacay baa jirta marka dadkaa dhalinyarada ah waxaan leeyahay ka faa'iidaysta waa taanis waxaad helaysaan gabdho waxaan qaba waayo anigu wadanka maan arag qof xanuunkan qaba laakiinse wadankii waxaan arkay dad badan oo xanuunkan qaba oo ka sheekeeya sida tifiyadoo kale facebookyadoo kale ka sheekeeyo idhaahda xanuunka waa qabnaa waa isdooxanaa dawooyinka meelkooda qaadanaa waa is aragnaa laakiinse dhibkaana xalka yurub nagu haystaa waxa weeyaan ma arkayaan waa gartay marka ma isleedahay mujtamaceenu waa dad xanuunadan aan ka hadlinin iyo duruufaha noocaas oo haysta sidaa awgeed waxay keeni kartaa dadku inay cuqdad ka qaadaan ayagoo awoodo inay xanuunkii daawo u raadsadaan oo la noolaadaan oo dareemaan ay fahmaan walaahaa dadka cuqdad badan baa haysta waayo annaka cuqdad baana haysta cuqdadu waxa weeyaan qofkii doorkiisa ma guursan karo talabaadna waxa weeyaan laakiinse anu waxaan dareemayaa qof soomaaliya walaalkii oo fayow oon xanuun haysan markaan guursado in niyadjab weyn isagii ay hagaag ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maxaad kula dardaarmaysaa dadka soomaaliyeed ee dunida daafeeda jooga dhalinyarada ama xanuunkan la nool ama dadka waaweynba ah la nool xanuunkan ama xanuunkan aan qabin waa maxay wacyigelintooda ku wajahan ood jeceshahay inaad ku wacyigelisid waa horta waxaan ku wacyigelinayaa marka hore in dawadooda si fiican ay u qaataan inay ilaahooda ku xidhnaadaan inaanay wax cabsiya xanuunkani oo badan ma laha wax werwer mooyaane laakiin wax cabsiyo qofku wuu dhimanaya walaalo saacad kasta qofku uu leeyahy ku dhimanaya laakiinse waxaan ku wacyigelinayaa in ay xanuunkan iska baadhaan oo iska daweeyaan oo dawada si joogta ah u qaataan waayo xanuunkan waa dilaa qofku hadduu difaacu ka dhinto uu dawada qaadan waayo xanuunkan waa loo geliyooba laakiin marka hadduu wadankii joogo uu wadankii soomaaliya joogo waxaan farayaa dadka wadankii jooga dawadooda inay si fiican u qaataan dadka yurubka jooga saasoo kale america dadka daafaha dunida jooga waa hagaag taasi waxay ahayd filinkii ugu dambeeyey oo aanu ka qabanay gabadhaas waxaan jeclahay markaan inaan dad aada u kooban fursad siiyo teleefanada dabadeedna barnaamijkan soo xirno dabcan in badan buu hawada ku jiray dabadeedna idin gudbiya qeybaha kale ee t v-ga barnaamijyada idinku talagalay caawa
oo ayaga laftigooda aada u xiiso badan waa hagaag qof kale ku xiga ahlan wasahlan waa gartay qofkaas ima maqlayaa la yidhi waxaan jeclahay insha allahu tacala inaan hoosta ka xariiqo qofkii xanuunkaa qaba inuu maaragtay markuu qof kale u tegaayo siday dhakhaatiirtu ii sheegeen iyo wariyaasheena qeyb ka midaba oo research ka sameeyo si fiican waxyaalaha noola socdaba khayr allah siiya inay maaragtay waana dhakhtar qofka kale maaragtay nolol dhex marto maxaa yeeley haddii aad HIV keliya aad qabtid uusan full blow uusan noqonin AIDS isku bedelin uusan xoogeysanin iyo qof marka isagoo markaa AIDSkii qaba oo maaragtay ku fiday maxaa la dhahaa jirka intiisa kale ama immune systemka ku fiday oo immune systemkii dilooday oo markaas maaragtay daawooyinku waxbay ka tarinoo xaalad danba gaaray iyo qof laga yaaba ilaahay baa haya 40 sano 30 sano soo socoto inuu noolaan karo isagoo daawadiisa qaadanaya dadkan aan ka duwanayn that is very important topic waxa weeyaan point insha allahu tacaala ciddii isguursanayso xanuunada qabta inay dhakhtarka marka hore la xiriiraan oo waana dhakhtar ay markaa iskula aqal galaan insha allahu tacaala khayr baan idin rajeynayna khadka ugu dambeeya ahlan wasahlan السلام عليكم kusoo dhaweyna walaal cabdixafiid waan ku salaamayaa gabadhaana insha allah ilaahay cudurka ha ka dulqaado amiin xanuunkana waa xanuun jiro waxbana yaan la faquuqin oo laga dhigin wax weyn waa sida xanuunada kaleeta uun imisa caafimaad qabta oo caadi iskaga dhimata xanuun yani dar alla u dhimata sidaa oo kaleeta uun ha loo arko oo iyadu ka dambayn karto ma fahantay marka waxa weeyaan waxba yaan la faquuqin oo dadka laga dhex saarin waa xanuun weeyaan xanuunada kaleeta lamid ah allaha caafiye iyadana allaha ka dulqaado xagga guurkana way u baahantay nolosha u khafiifinayaa oo maaragtay noloshiiba easy u noqonayso waxay u baahantay qof ay la qaybsato marka hadday hesho waxaan jeclaan lahaa inay guursato oy ku qabowdo oy ku degto oo la sheergareeyo nolosha waa gartay ugu dambeyntii marka laga soo tago gogasha iyo waxyaalaha lamidka aanu doonin aan dhex galno haddii markii fiidkii ay seexanayso nin ay isfahmeen oo noloshii isfahmeen oo waana dhakhtar isku guursadeen ay isla guursadaan ama xanuunkan baan qabin xanuuno kale dad xanuuno kala qaba sida kansarka oo kale iyo xanuunada la qaba lamidka hadduu qof ay wada nool yihiin oo gabadha la geento ku qabto uu ku yiraahdo how is your day you beautiful I miss you waxay ka fiican tahay iyadoo caruurtiisa xisay oo guriga mugdiya Soomaa cabdixakiin noloshu galmada un maaha noloshu waxa weeyaan gacanta xitaa haddii la is agjiifsado iyo neefta iyo wada tashiga iyo hamuumka iyo hamiga oo la iska dulqaado galmada un maaha noloshu intaasay u baahantay markay soo hooyato guri diiran oo nin jooga inay soo hooyato isaguna sidaas si leeg oo isku nafisaan wax isku sheegaan ay hamuunka iska dulqaadaan oo maaragtay midba midka kaleete wixii maanta ku dhacay wixii nolosha iyo la iskala qabsada galmada un maaha intaa weeye intay u baahan tahay ay la sheer garayso waa hagaag aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waqtiga iga dhacay intaa kugu jaro raalliho waxaan jeclahay inaan u mahadceliyey dhammaan dadweynihii soomaalida nagala qayb qaatay iyo marwo oo ahayd gabadha topigeena caawa aanu kusoo qaadanay da-deedu ay tahay 29 jir 3 caruur haysta lala noolna cudurka HIV-ga muddo 5 sana ku nool Yurubtan Scandinavian-ka wadan ka mid ah waxaan jeclahay oo kale inaan u mahadceliyo cabdixakiin alfiqi oo asagoo waraysigaas markiisii hore iga duubay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadceliyo wariye aadan saalimiin aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa ka qayb qaadashada barnaamijkan iyo talooyinka wax ku oolka aad soo gudbisay waxaan kaloo jeclahay haddii ilaahay subxana wa tacaala yidhaahdo inaan u mahadceliyo halyeyga barnaamijkan caawa ka shaqeeyey xaqiiqatan waa cali naaji oo maanta oo dhan barnaamijkan igala shaqeynaya waqti fara badanna u horay aad baan ugu mahadcelinaya axmed daahir baan u mahadcelinaya cabdalla mudhar ayaa idiin soo saaray anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac ayaa idinla socodsiinayay in badan waxaa idinkaga tegay inaan idhaahdo kelimada taqwada ilaah iyo midnimo caawa waxaan idin leeyahay waidaa maritu fahuwa yashfiini haddaan si kale u dhigo waxaan leeyahay alaa bidikri illaahi tadminu alquluub asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu